wasiirka oo qaabtay arrimaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cumar Cali Roble oo haatan ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday in go'aanadii ka soo baxay shirweynihii golaha caalamiga ee iskaashiga arrimaha islaamka ay ahaayeen kuwa wax weyn ka tari doona xaqiijinta horumarka iyo aayaha golahaasi. runtii waxaan waddankan Masar u nimaday casuumadan ka helnay wanaajina darteed waxaana lagu soo dhaweeyey airportka magaalada Qaahira safiirka dalka Soomaaliya u jooga waddanka Masar safiir Ilyas iyo tiim uu hogaaminayo. intaas dabadeed waxaan ka qayb galnay shirkii shirweynaha ahaa runtii caalamiga ahaa looga dooda iyo ama looga hadlayay arrimaha diinta iyo iskaashiga iyo wadajirka iyo diintu inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn runtii diinu salaam ay tahay. intaas dabadeed shirkaasi runtii waxaa isugu yimid wufuud kala duwan ee beesha caalamka ka mid ah wasaaradooda arrimaha diinta iyo qaafta iyo runtii wakiilo fara badan ka soo qayb galay halkan. shirku wuxuu ahaa shirkii 11aad ma ahayn shir bilow ah. waxaa xusid mudan in wasaaradda qaafta iyo arrimaha diintu ay tahay markii ugu horeysay ee halkan ka soo qayb gashay. shirkaas waxaan ku lahaynay khudbad runtii khudbad oo adunkuba daawateen ayaan maaragtay halkaas ka jeedinay oo ku lahayn. khudbadaas dabadeed waxaa noogu barbar socday shirku 3 cisho oo halkan ka socday inaan si gaargaar ula kulmaynay wasaaradda dhigayna ah oo runtii xiriiro wanaagsan horena ay u jireen haddana lasii adkeynayay. wasiirka oo u warramayay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ayaa waxa kale oo uu intaasi raaciyay in isaga iyo wafdiga uu hogaaminayo ee shucuur mugle ku abuurtay sida ay ka qaybgalayaasha kulankaasi ay ugu qanceen khudbada Soomaaliya ee ugu talagashay shirweynahaasi oo uu halkaasi ka soo jeediyay wasiirka oo qaabtay arrimaha ee dalka Soomaaliya mudane Cumar Cali Roble iyo guud ahaan wadahadaladii gooni-goonida ahayd ee uu wasiirku la yeeshay mas'uuliyiinta dhigiisa iyo xubnihii kale ee ka soo qayb galay shirweynahaasi iyadoo wasiirka iyo wafdigiisu uu shirweynahaasi ku weeliyey danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar danjire Ilyas Sheekh Cumar. haddaba wasiirka oo qaabtay arrimaha ee Soomaaliya mudane Cumar Cali Roble iyo wafdigiisu ayaa shirweynahaasi kadib toos booqashooyin ugu tagay wasiirka oo qaabta ee dalka Masar iyo Sheekhul Azharka dalkaasi iyo gudoomiyaha baarlamaanada wadamada Carabta halkaasoo ay mas'uuliyiintaasi si qalbi furan leh ay xafiisyadooda ugu soo dhaweeyeen wasiirka iyo wafdiga uu hogaaminayo. waxaan la kulanay fadiilad al-Imam al-Akbar Ustaad Dr. Ahmed Tayyib Sheikhul Azhar. sidoo kale waxaan la kulanay wasiirka dhigayga Mukhtaar Jumca oo marna la asheenay shir gaara ee albaabadu u xiran yihiin labada wasaaradood runtii khuseyna aad u hadalnay wax badan oo wax ku ool ayaan isla meel dhignay. waxaan ula wehlinay shirkaasi safiirka Soomaaliya halkan jooga safiir Ilyas oo runtii in aad iyo aad u qiimo badan u mahadcelinayna. intaas dabadeed waxaan la kulanay oo maaragtay wax badan aan isla meel saarnay gudoomiyaha baarlamaanka baarlamaanada Carabta runtii oo nin aad u qiimo badan ah Caadil Cabdiraxmaan oo isaguna runtii wax badan aan ka wada hadalnay. runtii waxaa cusub mudan shirkaasi khudbadayna iyo inaan fariintii iyo tusaalihii iyo salaantii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka injineer Maxamed Xuseen Roble inaan salaantoodii iyo talooyinkoodii aan meel walba aan gaarsiinay. runtii wax badan aan ka wada hadalnay. ugu muhiimsaneed in waddanka Soomaaliya waxbarashada la siiyo aan uga mahadcelino minxada ay dhiibaan dowladda ugu minxada badan inay tahay ayaa maaragtay filayaa
intaas dabadeed isaguna warbixin dheer uma siiyey annaguna waxaan ka dalbanay waxyaabo fara badan oo waxay lasii jireen inay si laba laaban iyo wax cusub sida tababarada toddobada iyo aimada iyo runtii in khibradaha ay leedahay jaamacatul azhar shariif inooga faa'iideyso ficlan waxaan si gaara ugala hadalnay aniga iyo safiirku iyo wafdiga nala socday waxaan si gaara ugala hadalnay dhibaatada corona ee waddankan kusoo isticmaaltay sidii ay garab istaagi lahay noogala gacansi lahay waxaan kala hadalnay maadaama bil ramadaan ay nagu soo socdo ummaduna abaaro fara badan oo jiraan waddankeena ay xawlakeeyey gaajo iyo oon iyo harraad iyo waxbalayo ay jiraan in arrimahaas wixii ummadda laga gaarsiin karo laga qabo karo laga qabto. haddaba kulamadaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar danjire Ilyas Sheekh Umar. haddaba munaasabada kulamadaasi kadib ayaa waxaa wasiirka oo qaabtay arrimaha diinta ee Soomaaliya mudane Umar Ali Roble uu soo booqday xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Qaahira halkaas oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar danjire Ilyas Sheekh Umar diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Soomaaliya ee magaalada Qaahira. waxaan xilligan aan taaganahay waan fadhiyaa guriga keliya ee ummadda Soomaaliyeed ay ku leedahay waddanka Masar waa safaaradii Soomaaliya ee Masar ku tiilay runtii safiirka iyo howlwadeennada dhammaan si sharaf iyo karaamo iyo qiimeyn ayay noo soo dhaweeyeen warbixin kooban baan kala qaadanay waxyaabaha aan ishaydu qabatay ka arkayaalka waxaa ugu muhiimsan safiirka cusub markuu yimid durba inuu bilaabay dayactirkii safaaradda aad uga mahadcelinayaa saacadka waad ku mahadsantahay leenahay ilaahayna amraaga dheer khayrna alla ku siiyo adiga iyo tiimkaaga kaleba aadaan kaga mahadcelinaya aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed meel kasii joogtaa gaar ahaan jaaliyadaha halkan jooga waxaan u baaqaynaa inay safiirka garab istaagaan waxaan leenahay waa halka guryood leeyihiin geedaadan daradan kuma dhahan tiro geedkaa dheer waxaan kama celiyo maanta waxaa keliya ku faanaysaan sharafka ummadda Soomaaliyeed meel kasii joogaan gaar ahaan ummadda Masar ku nool sharafkiinu waa hadba sida sharafka safaaraddiina ay u taalo ay sharafkiinu u oranayaan. علي جامع علمي على كوس ورباهن تقرك إيه سوماليا.